Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bahda nagu xiran ku soo dhawaada Dhise Podcast oo ah podcast aan ugu talagalay dhalinta Soomaaliyeed si ay kaga bogtaan barnaamijyo huwal wax badan noloshooda ka bedeli doonaan. Xalqadeena maanta ahna xalqada koowaad ee Dhise Podcast waxaa kaga hadli doonaa edbinta nafta iyo horumarinteeda. Dhammaanteena waxa aan jecel lahay in aan yeelano awood dheeraad ah, kalsooni dhammaystiran iyo in aan hadafkeena si fudud ku gaarno, balse daawadaha sharafta leh wax naga hor istaagan in aan yeelano joogteen iyo adkaysi aan ku gaari karno hadafkeena. Waxaan leenahay 4 cadow waaweyn inagoon iska celin kana adkaan 4taas cadow halista ah. Way adag tahay in aan nafaheena iyo dadkaba aan wax tarno. 4ta cadow halista ah waxay kala yihiin nafteena, adduunyada, shaydaanka iyo hawadeena. Sidaa darteed iyadoona laga rabo inaan ka adkaano 4taas cadow halista ah, waxa ugu liita uguna halista badan ayaa ah inaad samaysato cadow shanaad oo ah dadka. Hadalka haddii aan sii jilciyo in aad u hoggaansanto dadka si indho la'aan ah, tilaabo walba aad qaadayso noloshaada waa halista ugu weyn. Haddii aad caadi moodi jirtay, ma dareentaa xishood iyo cabsi marka aad dadka ku dhex jirto? Ma kugu adag tahay inaad dadka indhaha u dhammaystirto? Ma gaartay heer aad dadka maya dhihi karin xitaa haddii ay kaa dalbanayaan wax aadan awoodi karin? Hadallada dadka iyo ficilladooda si xad dhaaf ah ma kuu saameeyaan? Haddii aad la ildaran tahay kalsooni daro, xalqadan dhammayso. Huwal xalqadan kadib waxaad noqon doontaa qof cusub. Maxaa yeelay cadayga ugu weyn ka hor istaagan inaad isbeddel samayso, horumarna gaarto waa naftaada iyo kalsooni darada kugu xididaysatay. Waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB, halkan waa madashiina xikmadso. Dhammaadka muuqaalka waxaan ku siin doonaa talo muhiim ah huwal noloshaada wax badan ka bedeli doonta. Nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalka, haddana ku soo dhawaada xalqadeena maanta. Ugu horeyn daawadaha sharafta leh, waa maxay kalsooni? Kalsoonidu waa fikrad dhinacyo badan leh oo door muhiim ah ka ciyaarta nolosheena. Kalsoonidu waa dareenka hubantinimada naftaada, kartida qofka iyo go'aan qaadashadiisa. Kalsoonida nafta waa codka gudaha ku dhahaya waad samayn kartaa midaan marka aad la kulanto caqabado, fursado ama xitaa xaalado maalinle ah. Kalsoonidu ma aha inaad noqoto qof kaamil ah ama aan cilad lahayn. Kalsoonidu waa in aad naftaada rumaysataa kuna kalsoonaataa awooddaada si walba jirkaaga kaga hor imaanaya inuu wax qabto. Daawadaha sharafta leh, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, subscribe saaro, muuqaalkana like saar si uu dad badan u gaaro. 3dan qodob aan soo wado waxay yihiin tiirka kalsooni darada iyo kuwa ka dhigay qof gudaha ka jilcan ee aan isku kalsooneyn. Qodobka koowaad, in aad qof walba indhaha si toos ugu eegi karin. Qodobka labaad, in aad la gabato fikirkaaga mar walbana hadalkaagu daciif yahay. Qodobka saddexaad, in aad u hoggaansato dadka si indho la'aan ah adigoon is ogeyn. Haddii aan si buuxda u faahfaahiyo 3da qodob aan soo sheegay, haddii aan ku bilaabo qodobka koowaad, inaad indhaha dadka si toos ugu eegi karin. Indhuhu waa tiirka kalsoonida. Si walba aad jirka kaga xoogan tahay, haddii aad qof aad taqaanay qof aadan aqooninba indhaha si toos ugu eegi karin, waxaad tahay qof aan isku kalsooneen. Haddii aad dareento mar walba walwal, xishood, yaxyaxid iyo raaxo la'aan marka aad qof la hadlayso, si toosna indhaha ugu eegi karin, waxaad haysaa wadada burburka iyo kalsooni darada. Haddii aad karti iyo geesnimo iska baarto, mar walba naftaada aad qasabto si ay u samayso xiriirka indhaha, weliba cabsi iyo xishood la'aan, huwal waxaad noqonaysaa qofka ugu fiican xiriirka indhaha sameeya. Maxaa yeelay indhuhu waa wax ugu weyn kalsoonida qofka dhisa ama waa wax burburiya kalsoonidiisa. Ha isdhihin baahi uma qabo inaan qof walba indhaha si toos ugu eego. Haddii aad ku tababarto naftaada si adagna maalin walba u samayso xiriirka indhaha, huwal kalsooni daro dambe kama caban doontid. Tusaale, sharad inaad la gasho naftaada mar walba, sida adigoo ku dhahaya qofkan waxaan eegayaa ilaa uu indhihiisa hoos geeyo. Haddii aad sidaas ku wado maalin walba, waxaad arkaysaa adigoo cidkaa kalsooni badan jirin. Si buuxda ayay kugu soo laabanaysaa qiimahaaga iyo kalsoonidaada. Midda ugu muhiimsan, xeerkan isticmaal marka aad qof wada hadlaysaan. Marka aad adiga hadlayso, qofkana ku dhageysanayo, 50% indhaha si toos ugu eeg qofka adigoon jeesjeesan dhinacyadan aan isku boojeen. Marka uu qofka hadlaayo adigana aad dhegaysanayso, 70% indhaha si toos ugu eeg qofka adigoo u jiibinayo hadalka. Markan ayaa adag kaana rabto adkaysi iyo dhiirinaan, jirkaaga isku boojeen. Siiba inaad taabato wejigaaga in badan, si quman oo caadi ah u istaag, diiradda saar wada hadalka, ka ilaali maskaxdaada inay baxdo. Si toos indhaha ugu eeg qofka adigoo caadi ah, si walba gudaha cabsi iyo xishood kaga dareemayso. Noqo qof degan mar walba, waad la qabsan doontaa xeeladan, waxaana noqon doontaa qof si dhab isugu kalsoon. Qof yar iyo qof weynba si buuxda indhaha ugu eegi kara. Midda ugu daran, dadka badanaa aan ogeyn qofka aad taqaano balse aadan isla hadlin, iyo dadka kugu xusub marka ay kaasoo horbaxaan. Ha iska indha tirin, hana iska dhigin sidii adigoon arkaynin. 3 sekund kale indhaha si toos ugu eeg qof walba oo aad la kulanto, waxaad noqonaysaa qof isagoon hadlin laga dareemayo loona qirayo inuu si buuxda isugu kalsoon yahay. Waayo dadka xaaladaha gudaha ma arki karaan mana dareemi karaan. Dadku waa indho ku garaadlayaal, kaliya muuqaaga ayay qiimeeyaan si ay u ogaadaan inaad isku kalsoon tahay iyo inaadan isku kalsooneen. Midda ugu farxadda leh, dadka aan cabsan aan xishoon, dadkan indhaha si toos ugu eegi karaan waa dadka ugu soo jiidashada badan. Qofkaas way fududahay in laga helo. Qofka kalsooni iyo dhool cadeyn mar hadduu caado ka dhigto, noloshiisa waxay noqonaysaa mid kalsoon
kalsooni ku dhisan. Qodobka labaad, in aad la gabato fikirkaaga hadalkaagana mar walba daciif yahay. Imise jeer ayay kugu dhacday midaan iskuulka ama jaamacadda marka aad joogtay marka macalinka ardaydu weydiiyo su'aal fikirkaaga ma la gabatay adigoo ka cabsanayo inaad hadasho? Kalsooni darro ayaa kuu geysay, kuma geenin aqoon darro, waxaa kuu geeyay cabsi iyo xishood aad qabto. Ma tahay qof ka baqa fagaara ka hadal, sida inaad soo jeediso dhaabuur ama inaad soo jeediso presentation. Cabsidaas waxa kuu geeyay waa kalsooni darro iyo dadka cabsasho. Mala kulantay marka aad joogto meel dad badan buuxaan, sida dukaan inaad tagto si aad wax u iibsato adigoo muddo joogay la xishoonayay inaad hadasho dalabkaaga si aad u dhiibato, dad gadaashaada imaaday hortaada dalabkooda ma ku dhiibteen, marka la siiyey alaabtooda ma kaa horbaxeen. cabsidaas waxa kuu geysay waa kalsooni darro. adigu ha isku khaldin akhlaaq in la yeeshto, in la xishoodo iyo fikirkaaga iyo doonistaada mar walba inaad ka hadasho. codka qofka waa shakhsiyadda qofka. marka ay dadku ku arkaan 50% ayay ku garan karaan dadka adigoo muuqaaga loo wada jeedo, balse marka aad hadasho weliba si la yaqaano kalsooni iyo ragnimo ka muuqato u hadasho, dadka waxay ku garan doonaan si 100% ah. qaylooyin dhacday kalsooni ma ahan ee waa doqonnimo. balse haddii aad rabto inaad noqoto qof si 100% isugu kalsoon, hadal waadix ah mar walba ku hadal, waayo dadka aan isku kalsooneen mar walba kana baqa codkooda in la maqlo si walboo jirka kaga xoogan yihiin. marka ay hadlayaan yaa marka la dhaho waxay ku qasbanaadaan hadalkooda inay mar labaad ku soo celiyaan. haddii aad ka mid tahayna dadka sidaas u baqa, qof nool iska dhig. qofka aad la hadlayso waa asaagaaga, kaama qiimo badna, kaama fadli badna, kaama xoog badna. ku hadal cod dhexdhexaad ah oo la fahmi karo mar walba, adigoon hoos u dhigin hadalkaaga si aan lagu yasin ama kor u qaylinin si aan lagu dhibsan. qodobka ugu halista badan, qodobka saddexaad, in aad u hoggaansanto dadka fikir ahaan iyo ficil ahaan adigoon is ogeyn. daawadaha sharafta leh, qodobkan halista leh intaan u gudagelin waxaan rajaynayaa inaad subscribe saartay janalka, like-na aad saartay muuqaalka. kalsooni daradu hooyo iyo aaba waxaa u ah khiyaaliga maskaxdaada. imise jeer ayaad iska dhaadhicisay waxaad qorshaysatay, aadna sameyn rabtay inaad isaga dayso dadka dartooda adigoo ka baqaaya armaad fashilantaa, armay dadka kula yaabaan. waa kalsooni daro nooca ugu daran, in aad noloshaada iyo wax walba aad qabanayso dadka dartooda aadan tilaabo qaadi karin. xitaa ogsoonow dadka waa uumana adigoo kale ah, waxba kuma dhaamaan, badankoodane war iyo wacaalba kuma haayaan. midda ugu daran ma ku dhiban tahay meelaha dadka badankooda fariistaan inaad ag marto marka dadka aad horumarayso, niiddaada ma kuu sheegtaa in dadkoo idinku soo eegayaan? ma dareenta cabsi iyo yaxyaxid gudaha ah? haddii aad rabto dadka iyagoon hal kelimad xitaa ku odhan noloshaadoo dhan maamulaan, adiga ayaa u ogolaan karo middaas. waxaad isweydiinaysaa sidee ugu ogolaan karaa dadka inay u xukumaan? jawaab fudud ayaan ku siinayaa. maalintaada iyo habeenkaaga imise jeer ama imise waqti ayaad u beddeshaa go'aanadaada, ama aad isaga wadadaysaa waxa aad qaban rabtay dadka dartooda 1 jeer ama 2 jeer? waxaad tahay qof la xukumo isagoon is ogeyn. haddii aad rabto inaad ka adkaato naftaada, dad oo dhan agtaada yay ku weynaanin. wax walba aad samaynayso allah subxaanahu watacaala dartiisa u samey, kadib naftaada u samey wax u wanaagsan si ay u horumarto maalin walba. midda ugu daran kalsooni darada, markaaad wax iibsanayso wax aadan si 100% ugu qancin, ama waxaad og tahay in qiimahaas joogin badeecadaas, ha iibsan adigoo qancinayo ganacsadaha goobtaas jooga. wanaag sameey intaad isdhahayso dadka qanci oo dadka ha ku dhahaan hibil wuu fiican yahay. naftaada ha dulminin. marka aad ku fikirto dadka aad ku dhex jirto wanaagsanow, u dulqaado, deeqsi noqo si ay kuu ammaanaan, sidaas aadna ammaan iyo qanacsanaan u aragto. ogow waxaad tahay qof kalsoonidiisa dhimatay. xitaa haddii awood laguu siiyo bini'aadamka dunida joogoo dhan, mid haddii aad u siiso dunida muggiisoo dahab ah, weligaa ma qancin doontid. midda ugu halista badan aadna weligaa kasoo kabsan doonin waa ma qaadataa bahdil iyo kaftan in lagaa dhigto, weliba ay kugu sameeyaan asxaabtaada iyo dadka kugu dhow, adigana adigoon rabin xitaa ma ka aqbashaa bahdilkaas. ogow qiimo la'aantaas. xitaa haddii aad weynaato carruur yeelato kaama harayso. garo qiimaha naftaada, ha ka ogolaanin bahdil iyo yasmo qofna. marka aad adiga isqiimayso ayay dadka ku khasbanaan doonaan in ay ku qiimeeyaan. kalsooni daradu waa cudur ku dili kara maalin walba. waxa uu ku dhashaa si fudud, waxa uuna kula joogi karaa inta cimrigaaga ka dhiman, adigoo ku nool bahdil, xishood, qiimo la'aan, horumar la'aan, qancinta dadka, rajo xumo iyo hanyari. haddii aadan iska daweynin kalsooni daradaada, allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahay cidna ma bedelo ilaa uu qofki iska bedelo isaga, adigoo allah subxaanahu watacaala ku karaameeyey. ha ka ogolaanin bini'aadam asaagaaga ah inuu ku qiimo tiro. weligaa inta aad nooshahay xur ahaaw, wanaagsanow, si 100%na isugu kalsoonow. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxaan ka faa'iidayaa, maxaana ugu baahanahay kalsoonideeda inaan dhisto haddii aan haysto hanti ama aan ku noolahay qurbe, meel aan ka arkaynin dad badan aan isku jinsiyad nahay? jawaabtu waa midaan. kalsoonidu ma aha keliya dareen ama in la noqdo maxangeg, yacni in la noqdo qof ad adag. kalsoonidu naftu waxay leedahay faa'iidooyin muhiim ah, midaas oo taabanayso dhinacyo kala duwan oo noloshaada ah. faa'iidada koowaad, waxqabadka la hagaajiyey.
marka aad sidhab isugu kalsoon tahay waxaad u janjeertaa inaad si ka wanaagsan oo kalsooni ku dhisan u shaqayso. Kalsoonidu waxay ku ogolaanaysaa in aad qaadato khataro aadna u adkaysato caqabadaha nolosha si aad u gaarto yoolalkaaga. Tusaale, arday ku dhiban maadada xisaabta ayna ku adag tahay inuu xaliyo mar walba, ugu dambayn si kalsooni leh marka uu u go'aansado inuu xaliyo xisaabtiisa, dadaal badan sameeyo, habeeno badan soo jeedo, isagoo aaminsan inuu guulaysan doono kuna fiicnaan doono maadada xisaabta, ugu dambayn hubaal caqabadaas wuu ka tilaabsan doonaa wuuna ku guulaysan doonaa. Kalsoonida haddii aad geysi noqoto, dhiiranaato, waxay ku gaarsiinaysaa heer aad isku kalsoonaato cidna aadan u baahan. Faa'iidada labaad, xiriirka oo la horumariyey. Kalsoonidu waxay kordhisaa isdhexgalka wanaagsan ee lala yeesho dadka kale. Shakhsiyaadka kalsoonida leh waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo furfuran oo loo soo dhowaan karo, waxay si cad u gudbiyaan fikradahooda iyo dareenkooda, taasoo ka caawisa in ay sameeyaan xiriiro xooggan oo caafimaad qaba. Adiguna waad samayn kartaa haddii aad horumariso xiriirka dadka kugu dhow iyo bulshada aad la leedahay. Waxaa kuu fududaan doona inaad hesho aragtiyo badan, naftaada caawin kara. Ugu dambayn waxaad ka baxaysaa xirada ay kugu xirtay kalsooni darada, waxaad noqonaysaa qof quman si dhabna isugu kalsoon. Faa'iidada saddexaad, adkaysiga oo kordhaya. Kalsoonidu waxay kaa caawisaa in aad kasoo kabato dib u dhacyada iyo guuldarooyinka nolosha. Marka aad isku kalsoon tahay, waxaa yar inay caqabadaha nolosha ku niyad jabiyaan, kaana hor istaagaan yoolka aad u socotay. taa beddelkeeda caqabadaha waxaad u arki doontaa fursado, rabitaan iyo waxbarasho. Ka fikir qofka markuu si dhab isugu kalsoon yahay, xitaa haddii ay nolosha oo dhan ka hor imaato si ay ula dagaalanto, way adag tahay inuu isdhiibo. Qof aan isdhiiweyninna way adag tahay in laga adkaado. Faa'iidada afaraad, walwalka oo kaa yaraada. Kalsoonidu waxay gacan ka geysataa maareynta walwalka iyo walbahaarka. Marka aad aaminsan tahay awoodahaaga si aad ugu maareyso xaaladaha adag, waxaad ka adkaanaysaa cabsida iyo walwalka. Taasna waxay ku horseedi doontaa in aad noqoto qof maskax ahaan degan, xaaladihiisuna dheelitiran yihiin. Haddii aad aragto qof ka baqa dadka waxa ay ka aaminsan yihiin iyo waxa aan la gaarin, waa qof aan isku kalsooneen. Xur ahaaw naftaada, Allah subxaanahu wa tacaala ka sakow, adiga ayaa mas'uul ka ah. Si wanaagsan u hogaami naftaada, kuna hogaami inay mar walba qaado waddo wanaagsan. Xitaa waddadaas hadday dadka ka wada leexdaan, ha fiirin badnaanta, waayo qaladka dadka oo idil haddii ay wada sameeyaan weligiisa sax ma noqon doono. Adiguna waxa aad samaynayso kun jeer ka fikir wax kaaga imaan karo, hadda la joogo ama mustaqbalka. Haddii aad sidaas u fikirto una noolaato, Allah subxaanahu wa tacaala keliya inuu raali kaa noqdo inaad wax walba u samayso. Huwaal kalsooni daro, cabsi, walwal, niyad jab isma arki doontaan. Kalsoonidu ma ahan wax aan ku dhalanno, ee waa wax aan kobcino. Waxayna ka dhalataa dadaal miir qab ah iyo ficilo aan si joogto ah u samayno. Maadaama saddexda qodob kalsooni daro keeni karta aan ka soo hadlay iyo xalkooda dhammaystiran, inta aan kula wadaagin 5 xeer muhiim ah oo noloshaada bedeli doonaan, hubi in aad nagu soo birtay, subscribe-na aad saartay janaalka, muuqaalkana aad like saartay, una sii share garaysay asxaabtaada. Daawadaha sharafta leh, waxaan kula wadaagi doonaa 5 xeer oo awood leh haddii aad samayso si 100% kalsoonidaada u dhismi doonto. Xeerka koowaad, aqoonso awoodahaaga. Waqti sii naftaada si aad kaga fikirto guulaha aad gaari karto, xirfadahaaga iyo hibooyinkaaga. Si kalsooni leh isku weydii, maxaan ku fiicanahay aniga? Maxay ku raaxaysataa nafteeda? Ayna dareentaa deganaan marka ay samaynayso? Qirashada awoodahaaga waxay kor u qaadi karaan kartidaada, waxayna ku siin karaan asaas kalsooni dhammaystiran. Xeerka labaad, deji hadafyo dhab ah. Dejinta yoolal la gaari karo waxay kaa caawin kartaa inaad si tartiib ah u dhisato kalsoonidaada. Ku bilaaw yoolal yaryar la samayn karo, kadib si weyn ugu dabaaldeg. Haddii aad guul yar ka gaarto xitaa, tani waxay abuuri kartaa jawaab celin wanaagsan oo xoojin karta kalsoonidaada. Xeerka saddexaad, caqabadaha fikradaha xunxun. Dhammaanteena waxaan leenahay fikrado toban mararka qaarkood. Marka aad is aragto adigoo samayn raba fikrado xun iyo ficilo xun, ku tartansii naftaada in aad ka joogsato fikradahaas xunxun. Ogsoonow, ficilka xun in la sameeyo, in lagu fikiro lana qorsheeyo ayaa ka horeysa. Noqo qof si wanaagsan u fikira, kuna fikira wax u wanaagsan naftiisa, anfacayana noloshiisa. Xeerka afaraad, ku dadaal daryeelka naftaada. Daryeelka jirka iyo maskaxda ayaa laga maarmaan u ah dhisidda kalsoonida nafta. Cunto caafimaad leh, hurdo kugu filan, seexo, jimicsi joogto ah sameey, ku dhaqaaq howlo marka aad qabato ku farxad gelinaya. Mar walba dhanka wanaagsan wax ka eeg. Intaas haddii aad si joogto ah u samayso, huwaal waxa aad helaysaa kalsooni dhammaystiran. Xeerka ugu dambeeya, xeerka shanaad, raadi taageero. Ha ka baqin inaad la xiriirto asxaabtaada. Marka aad taageero kaga baahato, qoyskaaga iyo dadka khaaska ku ah la hadalkooda waxay kaa caawin karaan in aad qaabayso fikradahaaga iyo dareenkaaga. Waxaad ka helaysaa aragtiyo qiimo leh iyo inaad horumariso xeelada aad ku dhisan karto kalsoonida naftaada. Ugu dambeyn, daawadaha sharafta leh, kalsoonida ma ahan wax meel ku eg, waa safar, waana geedi socod mar walba. Si aad u aqoonsato awoodaha naftaada iyo kartidaada, xasuusnow mar walba, kalsoonidu nafta ma ahan in aad kaamil noqoto, waa inaad naftaada rumaysataa si aad u noqoto qof si dhab isugu kalsoon. Maanta bilow safarka kalsoonidaada.
talada ugu muhiimsan aan ku siinayo waxay tahay wax wanaagsan haddii aad samaynayso ha sugin beddelkiisa inaad hore ka hesho. Tusaale, haddii aad wanaag qof u samayso ha filan beddelkiisa in laguu sameeyo si aadan hadhow qofka ugu mana sheegan. wax walba aad samaynayso Allah subxaanahu wa tacaala dartiisa u samey. bini'aadamka ha kaga raadsan beddel, ammaan ama in lagu abaalgudo. huwaal waxaad ku noolaanaysaa nolol farxad leh. haddii aad halkan nala soo gaartay aad iyo aad u mahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si uu dad badan u gaaro. la wadaag asxaabtaadoo sheer dheh. intaan xalqadda xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.